Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa xalay cusbitaalada magaalada Muqdisho ku booqday bukaanadii uu dhaawaca uu ka soo gaaray weerarkii ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Wisil ee gobolkaasi Mudug. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda iyo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa si adag u cambaareeyay weerarkaasi ayagoo tacsi u diray dhammaan dadkii ku dhintay weerarkaasi shalay ka dhacay deegaanka Wisil ee gobolka Mudug. Madaxdan ayaa waxay sheegeen in ciidamada xoogga dalka ay sii laba jibaari doonaan howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee inta badan ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyaan gobolada dalka. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in dawladdu ay qaaday tallaabooyin degdeg ah oo loogu gurmanayo shacabka reer Wisil. Qaar ka mid ah shacabkii iyo askartii ku dhaawacmay dagaalkaasi ayaa waxaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho si dawladda ay daryeel caafimaad ugu fidiso. Ugu yaraan 30 qof oo isugu jira shacab iyo askar ayay Al-Shabaab ku dileen weerarkaasi ay ku qaadeen deegaanka Wisil oo dhaca koonfurta gobolka Mudug, halka Al-Shabaab xubno badan looga dilay dagaalkaasi. Dhanka kale waxaa saaka degan xaaladda deegaanka Wisil ee gobolka Mudug kadib markii halkaasi ay ku dagaalameen ciidamada dawladda, kuwa Galmudug iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. sidoo kale wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug oo war ka soo saartay weerarkaasi ayaa sheegtay in dagaalamayaasha Al-Shabaab dagaalkaasi looga dilay ku dhawaad 50 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana ay ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug ay howlgallo ka wadaan deegaanka Wisil iyo tuulooyinka hoos yimaada.